halkan booqasho ku yimid wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed mudane Xasan Khayre Ali wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta iyo wasiir dawlaha arrimaha dibadda iyo qaybo kale wafdiga ka tirsan galabtaan ku soo dhaweynay Addis Ababa waxayna halkan u yimaadeen in booqasho gaaban oo muddo maalin ama laba maalin qaadan doonta ay ku joogi doonaan wadankan Itoobiya oo uu ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalkan mudane Abiy Ahmed muhiimadda ugu weyn ee muxuu ahaa wafdiga prime ministerka halkan u yimidna waxay tahay in isu soo dhawaanshaha labada wadan iyo wax wada qabsiga